بدر ودك كراح السنويا الحمد لله قرآن اللي صار الحمد لله أنا يوم أسكت فتحكم مرة والله دقيقة يوم دوانا هين والله في قاي قفكاس واسقنا آخر الدون كما عفن إن شاء الله أنا علمي يركض صنايع أداي سحرت يا آخر الدون كما عفناي أفضل منها سفع وكحواي اليوم وعاو لحبة سارية وقال مقدسو سوي جدا مكة المكرمة سوي وحرستها جبهي مكة المكرمة إيدله وحرستها عاو حتى جقبون تحت من السجاج ما أنت سجين بلاو وحولتها وجهي أو إدكار وجهي إدكار كذا nabadda wadayaal soo dhawaada mar kaleeto iyo meel walba aad joogta waxaan halkan ku eegi doonaa waxaad wada ogeydeen Iidle Cabdullaahi Nuune oo fanaan Soomaaliyeed ah saldhigiisu ahaa magaalada Nairobi u deganaan jiray halkaasna dadka Soomaaliyeed ay ku barteen in waxa weeye hadallada aan la gabanin oo inta badan hadalla cad oo waxa weeye wax walba cadeeyana aha dhawaan waa kii xanuunsaday muddo uu xanuunsanayay Iidle siyaabo kala duwan ayuuna xanuunkiisu ahaa laakiin dhawaan baa waxa soo baxday inuu Iidle xanuun dheeraad u dareemayo xanuunkaasi oo ahaa in buradii maskaxda kaga tiilay ay ku kacday oo ay kor ugu kacday taasna ay keentay heer uu naftiisa ka qoosto sidii isagu hadalka u dhigay arintaas waa kii uu qoraalka soo dhigay baraha bulshada qoraalkaas markuu baraha bulshada soo dhigay oo faafayna meelo badan oo dunida ah ee Soomaalidu aad uga falceliyeen dawladda federaalka Soomaaliya kamid ah dadkii ka falceliyay iyo xubno dawladdaas kamid ah xildhibaano iyo wasiirro iyo kamid yihiin Iidle waa kii loo yeeray oo magaalada Muqdisho looga yeeray in caafimaadkiisa ay dawladdu kafaala qaado loona diro meel uu amnigiisa iyo waxa weeye caafimaadkiisa aan idhaahdee uu ammaan ku noqonayo oo wax laga qaban karo sida wadamada ay suurtagal ka tahay in intii burada laga qalo lagu soo dhameeyo Iidle wixii intaas ka dambeeyay waxa weeye waa kii baxay magaalada Muqdisho tagay si weyn loogu soo dhaweeyay hagar la'aana madaxda dawladda iyo mas'uuliyiin kala duwan ayuu la kulmay halkaas ayuuna Iidle Cabdullaahi Nuune xaaladiisu ay ahayd hadallada ama hadalka dadka aad u qiiro galiyay xilligaas wuxuu ahaa hadal kooban oo soo qoray oo ahaa walaalahay ilmahaygiyow ilaahay baan idinkaga tagay ama ilaahay baan idinkaga tagay ilmahaygiyow hadalkaasi waxa uu ahaa midkii sida weyn dadka u soo qabtay ugana naxiyay ee dadku ay ka wada argagaxeen keentayna waxa weeye dhammaan baraha bulshada hal mar hawshaasi intay ku faaftay ay bulshada Soomaaliyeedna jawaabo degdeg ah ay ka bixiyeen Iidle waa kii magaalada Muqdisho tagay Muqdisho markuu tagay madaxda dawladda ayuu la kulmay hawlihii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ballanqaad u sameeyay Khadiija Maxamed Diiriyo wasiir ah xildhibaan ah ballanqaad u sameysay waxa kale oo meesha iyadana ku jirta oo suurtagalkeeda madaxweynaha dawladda federaalka dhamaantood waxaana la filayaa inay san hore u soo sheegnay caafimaad ay geeyaan oo Iidle oo caafimaad meel ku helo la geyn doono marka waxa soo baxday hadda Iidle markuu magaalada Muqdisho tagay intaan halka idinka gudbeen soo dhaweyn diiran oo bulshadiisii kala kulmay ee tolkiisii iyo dadkii uu ka dhashay ehelka ahaa baa si gaar ah isooga xilsaaray Iidle way qabteen culimo loo fariisiyay quraan baa maalmo lagu waday magaalada Muqdisho si weyn loogu quraan saaray alla bari xoog badan ayaa la galiyay inuu Ilaahay ka caafiyo xanuunkaas laakiin arinta mucjizada iyo yaabka iyo ama kaaga iyo fajaca noqotay baa waxay noqotay arinta uu Iidle hadda inoo sheegayo ee uu sheegay bal adiguba Iidle oo arintaasi ka hadlaya oo ka sheekeynaya nala daawo oo nala arag بدر ودك كراح السنويا الحمد لله قرآن اللي صار الحمد لله أنا يوم أسكت فتحكم مرة والله دقيقة يوم دوانا هين والله في قاي قفكاس واسقنا آخر الدون كما عفن إن شاء الله أنا علمي يركض صنايع أداي سحرت يا آخر الدون كما عفناي أفضل منها سفع وكحواي اليوم وعاو لحبة سارية وقال مقدسو سوي جدا مكة المكرمة سوي وحرستها جبهي مكة المكرمة إيدله وحرستها عاو حتى جقبون تحت من السجاج ما أنت سجين بلاو وحولتها وجهي أو إدكار وجهي إدكار كذا wuxuu sheegayaa in la sixray dad ay asxaab dhow yihiin qof rag ah oo asxaab dhow yihiin oo sixray
qoraal buu soo dhigay facebookiisa uu kaga hadlayay arrinta ee ku saabsan sixirkiisa ama in isaga la sixray. qoraalkaas baraha bulshada ayaa aad loogu baahiyay maanta. waxa uuna ahaa alxamdulilah, waan caafimaaday, waan isquraan saaray, qof aan garanayo saaxiib dhow nahay ayaa isixray oo khatarta i geliyay. qofkaas sidaa ii galay aniga oo caruur korsanaya ama doonayo inaan caruurtayda korsado, noloshayda idhaafiya oo doonay nolosha dhaafiya, ma saamixin aakhiro iyo iftiinka toona. waana idin salaamay ayuu yiri Idil Cabdullaahi Nuune. runtii waa arrin kaleeto oo dhibkeeda iyo argagaxeeda iyo xanuunkeeda leh. walaalkeen inuu saaxiibadiisii garbaha u ahaa ama dadkii ay saaxiibada ahaayeen siduu soo sheegay inuu ka cabanayo, runtii waa arrin dhibkeeda leh, culayskeeda leh, cabsideeda leh. dadka Soomaalida ah oo de markii la fiiriyo dad walaalo oo ehludiin oo dhamaantooda muslimiin aha ka hor imanaysa iyada lafteeda oo islaamnimadii meel uga dhacaysa weeye. waana wax runtii aad looga xumaado in walaalkeen hadda cabashadiisu ay tahay war niman yahow saaxiibkay dhow baa isixray. dadku marka hadda waxa la iswada weydiinayo saaxiibka dhow. idlana inta badan nin wax qariyo ma aha, inkasta oo aysan fiicnayn kulana talinayna walaalkeen uusan waxba ee soo bandhigin walaalkaas fashilmay, laakiin haddana waxa laga yaabaa in la ogaado. waa arrin runtii xanuun badan oo dhib badan oo aad u culays badan weeye. Idil Cabdullaahi Nuune in uu maanta saaxiibkiis uu dhibana u yahay, weliba uu sixir uu geystay. waxaa kaleeto oo muuqaalkan uu soo duuba hadda daawanayseen magaalada Muqdisho gudaheeda ayuu ku duubay isagoo saaxiibadiis la socda, mahad badanna sheeganaya wadankiisii inuu joogo, uu baashaalayo, alxamdulillaah nabad qabo, caafimaad qabo, wixii hayeyna la ogaado inuu sixir ahaa. waa iyadana waxa weeye maasha Allah, ilaahay lagu mahadiyo. kala duwan walaalkeen dhakhtarka intuusan aadin dadkii kula taliyay iyo isaguba inay talaabada qaadaan dhinaca diinta islaamka oo quraanka wax ka horeeyo oo la isku daweeyo oo kalaamullah, kalaamu rabbul caalamiin ka horeeyo ay ma jiro. marka intuu go'aankaas qaatay inuu isquraan saaray oo waxa weeye uu naftiisa uu dhinaca ilaahay intuu cararay oo xagaas, waa arrin fiican. sideedabana dhalinyaradeena Soomaalida ee fanka ku jirta waxa weeye caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeye markii uu qofku fanka galo adigoo fanaan oo fankii ku jira, haddana inaad cibaadadaadii iyo xirsi xidhkaagii iyo hawlahaagii aad wadato wax ka mamnuucaya haba yaraatee ma jirto. laakiin dhalinyaradeenu markay fanka ku biiraan waxay u maleynayaan meel laga soo laabtay inuusan lahayn, oo fanku akhlaaq iyo edeb iyo dhaqan iyo wixii adiga oo fanka wata oo dhaqankaaga iyo diintaadii wax walba wata haddana fanku jir tusaan. xaqiiqatan fanku wax fiican ma ah. anu laakiin dadka waxaan ahay dhaqanka Soomaalida iyo fanka iyo suugaanta aadka u jecel baan ahay, sidaas ay tahay iguma badno dhageysiga heesuhu, haddaan dhageystana waa naadir weeye. marka idla laakiin waxaan kula talinayaa marka intuu cibaadada Ilaahay badiyo, hadduu doono fankiisa ku jiro inuu ka baxana way fiicnaan lahayd. cibaadada Ilaahay intuu badiyo, xirsi xidhkiisa uu badiyo, uu aad iyo aad isugu dayo in uu Ilaahay ka magan galo kuwa saaxiibadiisa ee waxa weeye insiga ah iyo kuwa jinka aba sharkooda uu ka magan galo. adduun waxaan joognaa waxba la isu ogolayn, adduun waxaan joognaa waxa weeye aan waxba la isu dhaafaynin, adduun waxaan joognaa aysan naxariis jirin, adduun waxaan joognaa dhaqan iyo diin iyo xigmado kale iyo wax kale midna la xeerinaynin. culayska iyo caqabadahaasna waxa keenay weeye. marka insha Allah walaalkayna caafimaad taama ayaan rajeynayaa. waadna mahadsantihiin.